إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم. su-aasha waxay sheegaysaa muxuu yahay dowrka culammada casrigani haddii ay rabaan inay ka hortagaan ilxaadka. ilxaadku dee waa aragti maanta dunida taalla, inkastoo waayadii hore maalan imaam alghazali raxmat ullaahi calayh markuu kitaabkiisa tahaafut alfalaasifa qorayay falasifuu radinayey, waxaanu ku radinayay 17 masalo uu rabay inuu ku gaalaysiiyo, laakiin ay ugu badnayd masaladan qidam alcaalam iyo wixii la mid ah. masalo aristotle wixii uu rumaysanaa, oo aristotle baa wuxuu rumeeyey ilaah baa jira dunidan sameeyey, laakiin maada huyuuli la yidhaahdaa jirta oo hore oo aan form iyo shakli iyo waxba toona lahayn. ilaahay taas buu ka sameeyey dunida, laakiin su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan maadadani waa qadiim, markaa xagee ka timi? على كل حال وين كورمي دونا أرسطوطل يفكردي سبيه كوا كلامه. سؤال waxay tahay markuu qorayay buukiisaba wuxuu tilmaamay koox yar oo dahriyiina oo aan cinda nudaar nudaartu asxaabi nadar waa yani mutakalimiintii waa culamadii caqliga isticmaalaysay aan ragga caqliga isticmaalay agtooda wasni ku lahayn baa mas'alada ilxaadka tilmaamta buu yidhi. mas'alada intuu sii waday buu yidhi waa mas'alo xataa hadduu qof yidhaahdo waan ku riyooday buu yidhi, waxaa la odhan lahaa buu yidhi misaajkiisu inuu liitaa loo daliishan lahaa buu yidhi. yani isagoo soo jeeda inuu yidhaahdo arrintu wacankan oo ilaahay ma jira daaye, xataa hadduu yidhaahdo waan seexdo waxaan ku riyooday, waxay daliil u noqon lahayd buu yidhi qof marka horeba misaajkiisu xun yahay inuu yahay. laakiin waxaan uga jeedaa masaladan culamada muslimiinta qura kuma koobna. horta kow lilmacluuma waxay leeyihiin iminka intii rabiic alcarabi ka dambeysay la baabi'iyey waxyaabaha aadka loo buunbuuniyey bay ka mid tahay qanaalada iyo facebookyada iyo waxaan carabta loo fasaxay. dhallinyarada carbeed hadda aad bay u dhex socotaa masalada tani, laakiin cagsigeedana qoraale aad u tiro badan baa laga qoray oo masaladan ka soo horjeeda. maalan doctor cumar shariif طبيب جراح مصري حوالي 4 بوق ama 5 بوق buu leeyahay masaladan oo qura ah. wuxuu leeyahay خرافة الإلحاد بوق لها 360 بيج meelaha siiya. wuxuu leeyahay رحلة العقل oo أنتوني فلو بوقيسيو intuu tarjumay haddana uu tacliiqinaya. wuxuu leeyahay aayadan quraanka mid uu ku fasirayo qul siru fi al-ard, wuxuu leeyahay sirna fi al-ard fawajadna kada wa kada. wuxuu leeyahay wahm al-ilhad. marka la isku daro 4 buug buu kaligii qoray oo masaladan ka waramaya. culamadii hore kutub aad u tiro badan bay ka qoreen, kuwa dambe kutub aad cilmi kalaamka lagu sheegayo nus ka midi wuxuu ka waramaya qawaacidan ay sheegayo dhan muslimiinta laga soo qaatay. waan tilmaami doonaa meelahay ka soo qaateen iyo waxay u daliishadeen. masalada tani maaha mas'ala cusub oo nadar cusub oo dunida ku soo kordhay maaha, waa wax renewal qolo isku dayaysa inay ku samayso dib u noolayso. waana masalo dee dunidoo dhami aan odhan karo aqoon-yahanka inta ugu badan bay kasoo horjeedaan oo maaha muslim oo qura kuma gaar aha. waxa laaliya theism iyo monotheism iyo waxa laaliya waxa aaminsan oo dhami dee waa fikrad kasoo wada horjeeda. marka aalaaf min alkutub aalaaf min almunaadaraat haddaad youtube-ka gashid waxaa laga yaabaa intaasoo 100 oo munaadara inaad hesho biayi luqa ku baxaysa, luqa alcarabiya, luqa alingiliisiya, ayi luqa. waliba munaadaraadka jaamacaadka qura haddaad gasho ayaa ciiddaa ka badan. yani maaha masalo runtii inagunbay ka soomaali ahaan aanaynu ugu badnayn oo soomaaliya waagii scientific socialismka la qaatay waxoogaa dooda waa la geli jiro waa jirtay, ardada badh waxaa rumaysatay, laakiin wasadka soomaaliyeed masaladani caan ma ahaan jirin. dadkiinan dabadda yimi bay waxoogaa raad ku leeleeday mooyaane xaggaa wax weyn kama aha. dee way fududay baan leeyahay. soomaalidu waxay tiraa beenig lug quray leedoo lugta haddii la qabto dee waa dhacdaa. ilxaadka waxaan rumaysana lug quruu leeyahay haddii lagu dhago wuu kufaya, wax weyn maaha. su-aasha kale saa-iilkaa soo weydiiyey wuxuu leeyahay marka dadka ilxaadka ama mulxidiinta lala doodayo miyaa loo baahan yahay cilmiga maadiga ah? haddii qof ilxaada lala doodayo oon ilaahay iyo shareecada rumaysnayn sidee looga dhaadhicin karaa qof aan ilaahayba rumaysnayn shareecada islaamka?
horta waxaan jeclaan lahaa su-aaluhu inaanay ka horeynin dee dooda lafteedii oo inagoo aan dooda soo bandhigin haddaynu su-aasheedu soo bilowno su-aashu waxay ku fiicnaan lahayd wixii aan ka hadlay wixii ka mid ah ee ama la fahmi waayo ama istifsaara ama inay ku saabsanaato ama lubul mawduuc hadday noqoto dee waxay noqonaysaa mawduuc aynu geli doonno inaan bilaabo haddabay noqonaysaa marka sideedabana waxaa dooda la yidhaahdaa haddaanad doodi aqoonin ma fiicna inaad doodid dooda in lagu jabiyaa kuma salaysna in lagaa xaqa lagaaga taagan yahay laakiin marar badan bay waxay ku salaysnaan kartaa trickska dooda in lagaa yaqaano un yani waxani waa usluub waa fanni la barto fanni alxiwaar haddaanad fanniga waxba ka aqoonin ama fikraddaa laga doodayo main questionskeeda meelaha rasmiga laysku haya haddaanad aqoonin aad dooda gasho farciyaad baad ka doodi doontaa maanta oo dhan meelo aydan dhammaynaynin oo aan result yeelanaynin ayaa doodiinu ku maranaysaa marka waxaan odhan karaa cid kastoo aad rabto inaad la doodo laba shay baa fiican fikradda aad rabto inaad kala dooddaa inay kuu caddahay qofkanna intaanad la doodin inaad og tahay wuxuu yahay yani waxay yidhaahdaan doodaha marka la qabanayo ninka kula doodaya all his books way soo akhriyaan bal ninkan iyo siduu u fekeray iyo wuxuu qoray iyo wuxuu rumaysan iyo wuxuu adilla haystay iyo wixii waa la soo akhriyaa marka doodda wax fudud maaha ta kale haddaad la doodo qof fanniga kaaga aqoon badan matalan haddaad tidhaahdo physics baan ku caddaynay masalada caynkaa tahay ood professor physics la doodo adigoo aan qawaacidda physicska aqoonin dee waxay noqonaysaa labada midhaad isku toosiso inuu shubahaad kaa geliyo ku yidhaahdo saasi sax maahe waa aragtidii hebele tan baa ka dambaysay oo lala socdaa inuu ku yidhaahdo adna aanad ogeyn marka doodaha badani faa'iido badan ma laha oo inta badan dooduhu waa lilmusaaraca waa iska legdinta oo kale laakiin xaqaa'iqda bini aadamka waa loo soo bandhigi karaa jazaak allah khayr sheekh qofkani ingiriisku kusoo qoray ingiriiska ku akhri insha allah soomaaliya someone says that if Allah is merciful then why Allah punishes a kafir in the hellfire forever if he does as a kafir why not punish him for certain amount of times then go to Jannah مسألة الشر ويان مركان تاكا هادلا بان كجوابيا qofka kale su-aal soo qoray wuxuu leeyahay dhalinyarada waxaa kusoo badanaya ayaamaha dambe inay qur-aanka iyo diinta ka hormariyaan sayniska iyo buruufka ay haystaan maxay diintu ka qabtaa in qofku barto psychology asagoo aan asagoo aqoon fiican aan u lahayn diinta islaamka أيها الأحبة ساينس واحد شرح واحد لها ساينس واحد لها سودو ساينس dadka inta badan wixii textbook ku qoran oo dhan science bay u haystaan wax badan oo textbookska ku yaalaana science maaha waa aragtiyo nin leeyahay xaqaa'iq cilmiya maaha waa afkaar waa ra'yi yani waxaa jira waxay yidhaahdaan xaqiiqada lafteeda iyo xaqiiqada sida loo fasirayo مثلا mid darwinism rumaysan baa wuxuu ku yidhi waxyaaba caddaynaya inuu bini aadamku soo tatawuray waxaa ka mid ah jidhkiisa waxa ku jira acdaa aan hadda shaqo qabanin oo sheegaysa acdaadaasi waxay sheegaysaa in ay beri ay shaqayn jirto oo evolutionkaagii hore inay ka hadhay marka waa raad waa shaahid caddaynaya inaad wax hore ka timi oo maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah appendixka ka mid ah waxaa ka mid ah muruqa yare dhegta hoosteeda ku jiraba ka mid ah haye science ma tahay mise maaha masaladaas science maaha waxa science uu gartay waxa weeyaan wuxuu hayaa appendixka shaqo uu qabto inaan hadda la garanaynin ka soo qaad iminka qaybo badan oo la gartaa jira oo dambe oo lagu tilmaamo inuu manaacada difaaca jirka bini aadamka qayb weyn inuu ka qaato laakiin kaba soo qaadaan aan la garanayn waqti dhaweyd ama
20th century-ga bilowyadiisi baa midib buug qoray dabeetana wuxuu tilmaamaya bini aadamka inay ku jiro 100 cudwi oo sheegaya inaanay wax shaqo ay bini aadamka u qabtaan inaanay jirin 100kii cudwi iminka dhowr baa ka hadhay intii kale si kolba mid maalin loo ogaanayo la lahaa waxan buu qabtaa daaqaday ka baxeen yacni cudwiga lama garan wuxuu qabto iyo xayawaanka horreeya lahaan jiray waa kala laba day cadaynu xayawaaniga horreeya lahaan jiray science maaha waa theory waa fikradnin hadda kama hadlayo Darwin sax ma yimsa maaha waa just example abandagasku inuu bini aadamku aanu u baahnayn xayawaanaad horasidan jireen oo raad inugu soo hadhay uu yahay ma daliil maxaa cadaynaya nin baa sidaa u sharxay ka waran haddaan u sharxo abandagasku wuxuu ka mid yahay acdaada aynan weli fahmin ka waran haddaan u sharxo waxaa laga yaabaa inuu yahay mutationskii jidhka intuu ka dhacay mustaqbalka evolutionka dambe wax tari doona ee mid hore kama hadhin ku soo socdo ka tirsan yihiin why not maxaa ka hore ka reebay maan idhaahno ku soo socda halkaad qaban doonto ka sii tirsan waxaan uga jeedaa xaqiiqada cilmiga iyo qaabka loo fasiraa waa kala nooc islaamku xaqiiqo cilmiga uu ka hor yimi ma jirto laakiin fasiro badan oo bini aadamku uu fasiray oo aan islaamku waafaqsanayn baa jira bale hadday imise fikradood oo cilmiya oo markii hore la rumaysnaaba iminka la buriyey maxay cadaynaysaa markaa inaan markii hore ahayn xaqiiqo cilmiya in loo qaato inay tahay maxay xaqiiqo cilmiya therefore waxa empirical science la yiraahdo empirical waxa noqday experiment gale waa mas'ala gaar ah ama aaraada lagu dulbineeya waa mas'ala kale سأوجد حلنا نهي واحد دين تكمده ابن تيمية رحمة الله عليه وقت يسيبوه قرأ كتاب الله هذا محي درء التعارض بين الدين والعقل العقل السليم بوليه هي الدين تمر نبا سكبه هري مادان بس على ده إنه شرح أبو كتاب كوبي طبعا فوليوم قرأ كتاب كوبي طبعا فوليوم هو قرأ إنه عديه عقل يتوسن هي شرع وين أنا يسبرينين laba mid un baa dhacda hadaad aragto wax iska hor yimi ama adigu sida naskan quraanka ama xadiidka u fahamtay baa qaldan nasku ma qaldan ee fahamkaaga qaldan ama waxaanad xaqiiqada cilmiga moodaysaan xaqiiqa cilmiya ahayn waa labada mid un otherwise waa inay isku wax sheegaan waa inay isku shay sheegayaan idan ama shaygan baan ahayn xaqiiqa cilmiya adigu aad mooday xaqiiqada cilmiga ama naskan baa sidaad u fahamtay aan ahayn sidii sax ahay laakiin miyay suurtagaltay ilaahi kownka sameeyay علمي هو محي واكتشاف وانفنتس وانفنشنز ووح جرو لو غادي علمي هو حسب له سكر ليا ما جيران وح جيران لو غادا waxaan hadii saalayda saas u shaqeynaya danaan ka faa'iideysano ilaahi waxaan jira sameeyay miyaanu garanaynin sidoo u shaqeeyo mise ka gadisan quraanka ku qori lahaa intuu ama tawraad ku qori lahaa makan ku qori lahaa macquul maaha idan macquul maaha inay diin sax oo ilaahi ka timi iyo aqoon sax إن إسبريان معقول ما هيدو حاجة بني آدم كا وحكا قلدين أما فهم كا قلدان أما مسألة دا قلدان والله أعلم أستاذ شكوكتا الشيخ حرير أنت لك باكاد حيا فلاسفة الإسلام كا يو إلحاد كا سيبا أصحاب وحدة الوجود يعني العلاقة بين وحدة الوجود والفلسفة والإلحاد وحدة الوجود كو دي إلحاد معها يعني الحاد كان إنه شيء جيني وحدة الوجود كواددا من سنة إلهي إنه الدنيا كلها يحشروها كون كان سجى إلها سجى كون كي سجى وحيورنا وإسبانوزا فيلسوفكي أنا كوي دمبيع مثلا فيلسوفكي محوها ما يشات كتير محل أورنج نيدرلاند فيلسوفكي نيدرلانديس كاها إسبانوزا لورنج روا وحور رميسنا إسبانوزا كان يصدق واحد كوحو كنطي أفر لعنضات يا أفر مترنا لو سو جيرسن كرين أيو مجمع الرهبانيين كحكومة اسمه زينان أفر قرنا إلا نعدلي يعني أنت صار مترنا قف بنا آدم وصورنا فكرين نشرين وفلسفة وحدة الوجود كان أنت بدن شرقي جاء مثلا غير بريقة فلسفة دي وحدة الوجود محكر هي فلسفة دواجه هرمي من سنين وقرني أفراد ما لها مركي لمريي أيو أفلاطونية الحديثة أفلاطون كي لورنشري اسكندرية كوكوري فلسوف كهابا صفري وحتى جاي إندية يدور كاسي فلسفة الشرق جاهيد بساق عطي
dabeetana iskandariyada meelihiiba ku soo noqday falsafo cusub buu bilaabay oo ah mas'aladii uu aristotle u taag waayey buu rabay inuu xal u helo. aristotle wuxuu yidhi maadadu weligeed bay soo jirtay, ilaahayna waa qadiimo weligii buu jiray, laakiin maadadaa hore soo jirtay huyuul baa la odhan jiro nooc gaara, shakli may lahayn, qaab may lahayn, kan may lahayn. marka laba qadiim buu sheegayaa aristotle, waayo wuxuu rumaysan kari waayey from nothing ayaa wax laga sameeyey. nothing waxba kama samaysmaan buu leeyahay, wax laga sameeyey waa ina jira. ilaahay waa khaaliqo, isagaa dunida abuuray, laakiin wuxuu ka abuuraa jira buu leeyahay. mas'aladaasi waxay ahayd mas'alo irbaak caqliya ku haysa falaasafada. aflaatiin markii uu tegay bariga kan ee uu falsafa sharqiya soo qaatay ee uu soo noqday ayuu bilaabay waxa loo yaqaanaa aflaatooniya alxadiitha. aflaatooniya alxadiitha markaasi wuxuu yidhi maadadu waa fayd rabbaaniya. suufiyada kuma maqashaan waxba fuyuudaat rabbaaniya iyo waa kan, waa ninkii ereyga kan la yimi, waa fayd rabbaaniya buu leeyahy. kownku meel kale kama imane yafiidu can illaah, xagga alluu ka soo burqaday. marka waa masaladan waxdatul wujuud halka waa asala, ninkaasaa waa asala, tan dambe falsafada ku jirta weeyaan. ama falsafada muslimiinta ee tirada badnayd intooda ugu badanay kama tirsanayn. masaa'il kaloo lagu haystaa jira, laakiin falsafadii muslimiinta inta badan may aaminsanayn masaladan in yaroo suufiya ah oo ibnu carabi iyo midhadh la mid oo suufiyada ka mid a baa lagu sheegaa inay fikradan qaateen, laakiin falsafada agtooda wax weyn kamay ahayn. wallahu aclam. sheekh su-aasha u dambaysa su-aalaha kusoo gogweyna insha allah. darwinismka iyo ilxaadka cilaaqa intee leeg baa ka dhexaysa? qof aan mulxid ahayni darwinismka ma aaminsanaan karaa? ها waayo darwin hortiibaa malaaxida jirtay. darwin buuggiisa goormu qoray? 1859 ma ahayd meelaha. darwin buugagtiisa dee waa qarnigii 19aad. qarniga 19aad hortiibaa malaaxida jirtay, laakiin malaaxidada mucaasiriinta ah aragtida darwin waxay uga mid tahay aragtiya ay rabaan inay wax ku fasiraan waa kitaabkooda. يعني waxaan oran karnaa waa bible-kooda uu yahay hadda darwinism. weliba dee darwintiisii hore laga tago new darwinism baa la aaminsan yahay. anyhow cid kastoo darwinism aaminsani ma mulxid baa? iyana waa maya. waxaa jira darwinism theory dad aaminsan oo xataa muslimiina, waxaa laga yaabaa inay yaabtaan, laakiin darwinism theory-ga sidiisii uma wada aaminsanay. waxay aaminsan yihiin wax la yidhaahdo الداروينية الموجهة، لكن هو ضدير. كريستيانتي أنا وكمد نمن كريستنا وهذا الداروينيسم كامسنا أو رميسان يتهاي طريقة الخلق قابك إلهي وحو أبوري إلهي با وحنين يتطوران وصارن وضان إلهي با بلابي وعين كانوا سمية وقاب كانوا دقاي دبتنا قاب كانوا دقاي بوحنو إيفولف قروبي يا بيلي إيفوليوشن كو سحمية مستسح ما هو مسألة كله. لكن waxaan ka warramayaa dadka aaminsani waxay aaminsan yihiin marka inuu qofku evolution aaminsan yahay kama dhalato ilaa inuu mulxid yahay. mulxid aan iyada aaminsanayn baa la helaya, ama agnostic. مثلا ديفيد برلسكوني waa nimanka diidan. مثلا Institute of Discovery Seattle Institute kan ku yaala ay yiraahdaan intelligent design ka qoladan aaminsanay. intelligent design oo dhan raga aaminsanay waxay diidan yihiin haba yaraatee darwinism inuu sax noqon karo. waa culamo ka mid ah saynisyahanada dunida waxay leeyihiin liis 900 qof ku dhow oo wada PhD sita oo le waxba kama jiraan. webpage bay leeyihiin ay ku leeyihiin haddaad aqoonyahan toocankaas oo aad aaminsantay su-aal baa ku qoran, su-aasha haddaad haa le tahay dhahdo liiskayga galbay ku odhanayaan. website-kooda waad geli kartaa. ID-ga Institute of Discovery baa la yidhaahdaa. Intelligent Design Discovery Institute baa la yidhaha meeshooda. Intelligent Design waa fikrada aaminsan. waxaan uga jeedaa David Berlusconiga kanoo qolada ka tirsan isagu wuxuu leeyahay waxaan xisaabiyey buu yidhi sac in loo bedelo nimiri intay qaadanaysaa. nimiriga waxay rumaysan yihiin soo maaha inuu thadiyaadka ka mid yahay, saca maaha vertebralka kuwana naasaha haleenu ku jiro. marka waa kuwii dhulka joogay oo badda dib ugu noqday. sac haddaynu isnaa badda ku celiya buu leeyahay intay qaadanaysaa.
50,000 units buu u baahan yahay buu leeyahay in change lagu sameeyo. 50,000 units mathematically markaan xisaabiyey oo item buu u baahan yahay 50,000 items oo qaarkood la rabo buu leeyahay inay isku mar dhacaan intay ku dhici karaan. waxaan uga jeedaa waxbana ma aaminsana ka caynkan leh fikraddan uu diiday. marka waxaan uga jeedaa darwinismku sharti uma aha inuu mulxid yahay qofku. mulxidaan darwin aaminsanin waa la helayaa. mulxid darwin aaminsanina waa badan yihiin. kuwo iimaan sheeganayo darwinism aaminsanina waa jiraan. kristan iyo muslim iyo wax oo dhan. سؤال حاجة قبلها كتمي إن شاء الله تعالى شيخ واحد هذا قبلني how can you deal with a person who doesn't believe anything yet asks a lot of questions يعني سؤالك الكوديني وقفا وحب الأسئلة قفا وحب الرميسنين ده واحد لقى لها أسئلة الوجود الكبرى وحيوة المامان دون ده حاجة كتمي يا سمي حاجة وصعطة وأسئلة الوجود قف كستو بني آدم وسويدية أما قال هو أما مسلم هاو حاضر النوش هو يوم بينكم حوك قد يسير نوالها كله الدنيا الشوكة بس تشير كاد لمت تشير قوية ما دور انت خلاص النواتي موضي ما نسى هذا حقوق البني آدم كان واحد شيء يسوى محي هديل والله يمكن قاربة أمسن هدي تتقردان لله هدي تشير كالله واسفمت وإذا there's no difference والله بقى أنيمال أو الدنيا كوركيس صار لا حيوان والدنيا كوركيس صار ومد ولا بقى evolve كروبي أو قرا وضع لا اسكو أبترسية ومر الدنيا نوى دايمي therefore privilege كمل هيد بيلي واي هدي شركة للسمية هدي قالوا السمية the same thing إذا ما حنو كشيء ده قفك أسئلة الوجود بالله قالت ضوء مركو هري محاجرة دنيا ده حاجة كتمي سيسوتمي حقاي كو صعطا نولش هذا محي معنا سمينيسا why you are living maxaad u nooshay as'ilada haddaan qofka isla meel dhigtaan dan waxa ka dambeeya waa la isla meel dhigi karaa hadduu as'iladaasi ka jawaabi kari waayana looma taakayo midbana waa jirtaa waxay yidhaahdaan dadka badhba waxay rumayseen iraadatu lilxaad inaan mulxid noqdaa baan doonaya dee waxba kama qaban kartid kaa iska ahu mulxidkaaga weeya يعني أدلة عقلية ومبهنية أدلة ساينتفكية وحطونا جاس وان كهلا يعني حرت إذا هذا هرا اللي وشيء ده أنا عندنا كابسن تهلتهم هو قالوا من تقدمني إلهي بيدي فما شاء فليكفر وما شاء فليؤمن هذا قانون ما هي ستة دولتنا ما هي ستة ده أسي هو يوم بيقولوا لا نقرأ ضد لا نقبس وف بني آدم ما هو حبر رميسنين وندوح حقوقية لن كرونسي والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم الشيخ قرآن بدن بعض الشيكتي وداوة مشكلة ده هذا بقى عروتنا يقار إنك إذا ما فهم سنين القرآن كإن بدن مركزه ضروري معها إن القرآن كحق لصاره فهم كيس قرآن كإلا برتوا ضروري قرآن كو يسقى الدين يسقى الرسالة ده يسقى عضينا وحين أوبا هن إلهي شريتان كيس النبي محمدين والنبي أها diintu inay sax tahay intaba quraanka u daliila wixii la inaga rabay ee la rabay inaynu sameynana quraanka u daliila marka quraanku waa catalog leena soo raaciyay gabadhada markay ibsataan catalog book baa jira Soomaha item kasto gaariga ku jira sheega catalog book bini aadamku waa kitaabkan quraanka ah ee Ilaahay ku soo raaciyay wax kasta loogu tala galay inaad ka hesho marka quraanka inaynu baranaaso daruuri ma hadda muslimiin isweydiiyo ma waa ina barataan oo ku dadaashaan waqti siisaan wallahu a'lam.